to come forward and give his Nobel lecture. Prime Minister. labadii abriil 2018 ayuu xafiiska yimid wiilka 44 jirka ah ee magaalada Bashaasha ku dhashay ee Abiy Ahmed Cali 3 sano oo uu xukunka hayay korneylkan sirdoonka dalka hoggaankiisa ka soo mid noqday ayaynu eegaynaa waxqabadkiisa siyaasadeed iyo dhacdooyinka waaweyn ee haysta waa 6 waxqabad oo muuqda laakiin ayaase dul hoganaysa oo daba taala 5 caqabadood oo halis ku ah dhammaan geedigii Abiy Ahmed ee 3 sano waana bilowga faalaynta ayaamaha Abiy Ahmed ee joogitaanka xukunka arrinta koobaad waa dimuqraadiyadda Korneyl Abiy Ahmed oo siyaasadda ku soo galay nabadoonnimo iyo isdhuldhigid uu kula shaqeeyay rajiimkii gacanta adkaa ee soo tababaray ee TPLF waxaa loo arkayay ra'iisul wasaare dimuqraadiyadda iyo isdoorashada xorta ah garab iyo gaashaan u noqda waxa ay ahayd sanad ka hor inuu qabto doorashada dalka Itoobiya oo dhan ah baaqashadii doorashadaasi waxa ay keentay mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa ee gobolka Geeska waa dabarjaristii TPLF iyo maamulkoodii Tigreega inkastoo dad badani mahadiyeen duulaankaas oo uu meesha ka saaray wax loo arkayay gafanayaasha Geeska haddana dimuqraadiyaddii dalka Itoobiya iyo filashadii laga filayay wiilka dhalinyarada ah ee Abiy Ahmed ayuu hoos u dhigay waxaana uu gaarsiiyay meeshii ugu hooseysay korneylkii sirdoonka ka yimidna waxa uu hadda dhexda uga jira wax u muuqda calaamad weyn oo dul taagan qodobka labaadi waa nabadeynta gudaha iyo soo afjaridda jamhadihii hubaysnaa ee xukunkiisa ka soo horjeeday biladda nabadda ayuu ku haystaa arrinta nabadeynta waana maragmadoonta inuu si fiican u maareeyay la heshiinta jamhadihii la dagaalamayay ciidanka Itoobiya sanadkii 30 sano ee la soo dhaafay waxa uu fuliyay dalabaadkoodii xabadhigista waxa uu muuqday inuu ka dhabayn doono inaan jamhadahani mar kale dibadda u bixin balse mintidiinta mayalka adag ee Onagsheena iyo kuwa Tigreega ayaa wali ah rabshad xooggan oo u baahan xallin degdeg ah waana halis weyn oo waqtigan uu wajahayo qodobka saddexaadi isdhexgalka bulshada hogaamiyahan Oromada ka soo jeeda waxa wali caqabad ku ah dhaqanka iyo doonista qowmiyadiisa Oromada oo ku dhawaad u arkay inay tahay iyagu cidda kaliya ee ay tahay Itoobiya inay ku naaloodaan balse aragtidiisa isdhexgalka iyo wada noolaanshaha ayuu u muuqdaa inuu xoog ku fulin doono taas oo mar kale noqon doonta albaab dagaal iyo furin cusub oo xukunkiisa uu 3 sano kadib la daala dhacayo 4 arrimaha dhaqaalaha in 7% dhaqaalaha Itoobiya heerka guud uu kor u kaco 2 sano ee hore muddaxileedka Abiy ayaa ahayd kobac iyo macaash qaran oo dadku ku ildoogsadeen kuwaasoo hodantinimada Itoobiya qayb ka ahayd laakiin himiladaasi inkastoo uu ku sii dhagan yahay Abiy Ahmed haddana shaki ma leh in dagaalada guduhu ay gaarsiiyeen meel hoose dhaqaalaha Itoobiya wax soo saarku u burburay maalgashiga dibadeedna uu aad hoos ugu dhacay 5 ka dhabaynta buuxinta biyo xireenka Abay waxa loo arkaa fursad bilow u ah isbedel dhaqaale iyo laba kac nololeed caqabado waaweyn ayuu soo wajahayaa marxaladuna oo ma sahlana qodobka 6 arrimaha dibadda waa siyaasigii labaad ee Afrika isagoo xukunka jooga loo boqray biladda nabadda adduunka waxa uu ku helay dadaalkiisa caalamiga ah ee dhamaynta khilaafkii Eritrea kaasoo horseed u noqday in siyaasadda degan ee dibadda dalkaasi uu ku hogaamiyo Abiy Ahmed caqabado waaweyn ayaa sahaysta kuwaasoo ka kooban ama laga xusi karo ilaa 5 qaybood waa tan koobaad siyaasiyiinta gudaha ee xabsiga dariska la noqday abaabulaha bulsheed ee Jawhar Maxamed oo sanad ku dhawaad xabsiga hurdo iyo jaalkiisa ayaa ku ah booga ay adag tahay in dhawaan la daweeyo kacdoonada Bishinguul Oromada iyo khilaafka qowmiyadaha gudaha ayaa dhibaato u baahan maareyn ka hor doorashada dhow walow aysan muuqan wada lagu xallinayo dhimashada barakaca iyo dhaawacuna uu sii kordhayo dad badan waxay u arkaan kala miranka Itoobiya sii socota oo aan soo socon 3 dagaalkii Tigreega
in TPLF laga saaro saaxadda ayaa ah guul siyaasadeed balse dhibaatooyinka dhaqandhaqaale ee ka dhashay ayaa sii jiraya waxaa ka dhashay xaalado bini'aadantinimo oo bulshada caalamka ka qaylisay waana daldalaad siyaasadeed oo uu wajahay 44 jirka Itoobiyaanka ah waxa uu dhexda u dabaalanayaa mushkilad weyn oo xagga xuquuqda aadanaha ah reer galbeedku waxa ay u arkaan mid degdegay hadda waxa ay xoogga saarayaan in ay isticmaalaan laftiisa welise madax taagid xooggan ayuu dhexda kaga jiraa Maraykanku waxa uu doonayaa Abiy inuu noqdo ciqaabaha loo marayo jaalkii uu bilada ku qaatay Abiy ee siyaasi Afwerki waana tallaabooyin adag oo xagga siyaasadda lana saarayo siyaasi Afwerkiga xukuma Asmara 4 khilaafka Niilka buuxinta dhaamka biyo xireenka Abay waxa uu dalkani u jihayn karaa dagaal aan dhammaad lahayn kaasoo dhex mari doona masaarida biyaha Niilka nolosha u tahay oo kaashanaya Suudaanta dariska la ah Itoobiya 5 dagaalkan sida Suudaan ee xadka beeraha faqsha kaasoo ku saabsan muran xuduudeed ayaa isaguna waji colaadeed ah oo aan si fudud looga gudbi doonin Abiy Ahmed 3 sano oo xukunka hayo guusha ugu weyn ee uu gaaray waa joogisiisa xukunka kadib 3 inqilaab 6 isku day dil 113 dagaal oo kacdoon Oromada ah mid xabadeed oo Tigray lala galay iyo mid saaxiibtinimo oo Amxaarada ku hayso dad badan ayaa u arka guul kale inuu dalka ka qabto doorashooyin nabdoon oo xasilooni ku dhamaata balse waa su'aal adag oo ka jawaabisteeda waqtiga loo deynayo dagaalkii Tigrayga oo 20 sano socday ayay u muuqataa in lagu bedelay caashaq iyo iscalmasho dhexmartay Abiy iyo Afwerkiga Asmara ka taliya laakiin dhadhanka uu yeelan doono isdhexgalka 3 sano jirsaday ma noqon doonaa ciqaab cusub oo halis ah iyo Abiy oo wajaha tallaabooyin culus oo uga yimaada reer galbeedka bilad nabadda adduunkana mar kale loo bedelo mid wasakhaysan maadaama hadda ay dhaawac halis dhexda ka joogto